waxaa soo wacay labadiisii saaxiib waxayna ku dhaheen inuu si degdeg ah u soo gaadho. isna waa uu soo cararay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhowaada saaxiibayaal, waa mar kale iyo muuqaal cusub. muuqaalkeenna maanta waxaan ku soo qaadan doonaa masaa'id cajiib badan, bal aan ku xasuusiyaa fiidiyowga leegta hala dhaafin. waxay ahaayeen 3 wiil oo saaxiiba kuwaasoo isku diyaarinayay in ay dalxiis ku aadaan badda xilligeeda. halkaasna waxay ku ballansanaayeen habla ay isla markaa rabeen in ay waqti la qaataan. 3 wiil ee saaxiibada mid ka mid ayaa waxa uu aaday goobta lagu iibiyo dharka lagu dabaasho. waxa uu rabay inuu asxaabtiisa kays kaga dhigo. goobta uu ku sii socday gudaha waxaa ugu jiray hooyo iyo cunug ay dhashay. wiilka yari waxa uu indhaha la raacayaa dhar aad u qurux badan oo goobta yaala. waxa uuna ku dhawaaqayaa, hooyo waxaan u baahanahay inaad dharkan ii iibiso. waxa ay hooyaduna leedahay, ma awoodo inaan kuu iibiyo dharkan qaaliga, waad xidhan tahay dhar cawradaada asturi kara. wiilkeeri aad ayuu u ooyayaa, waxa uuna u baahan yahay dharkan aadka qurux badan loo iibiyo. hooyadu waxay u tagtay qofkii iibinaya dharka, waxayna weydiisay qiimaha, laakiinse waxay ugu jawaabeen qiimo aad u qaaliya, isla markaana aysan iyadu haynin. waxay tidhi, wiilkaygiiyow, dharkan aad ayuu u qaali yahay, aniguna ma awoodo inaan kuu iibiyo. waxayna isku dayday in ay wiilkeega gacanta qabato, isla markaana ay goobta ka saarto. wiilkeedi xagga dambe ayuu soo eegayaa. waxa isla markaana arkay inankii rabay inuu dharka dabaasha iibsado. waxa uuna u yeedhay hooyadii. waxa uu dhahay, aniga ayaa ka bixinaya lacagta. aad ayuuna u faraxday hooyadii. ilmo ayaa ka soo daadatay. wiilkii yaraa waxa uu iibiyey dharkii uu doonayay, waa uuna dhunkaday. lacagtii soo hadhayna waxa uu siiyey hooyadii. hooyadiina aad ayuu u faraxday, iyadoo ilmo badan ay ka socoto. waxayna ku tidhi, waan kuu ducaynayaa, rabbi kuma tuso wax ku dhiba. asxaabtiisii waa ay sugayaan. waxa ayna joogaan goobtii lagu ballansanaa, isla markaan la iska raaci lahaa. wiilkii lacagtii waa ay ka dhammaatay, waxaana u baahday inuu lacag kale soo qaato, isla markaana guriga ayuu dib ugu noqday. waxaa soo wacay labadiisii saaxiib waxayna ku dhaheen inuu si degdeg ah u soo gaadho. isna waa uu soo cararay, waana u yimaaday. waxa uu arkay asxaabtiisii oo gaadhiga gudaha ugu jira, waa ayna israaceen. wakhti dheer markii ay socdeen waxaa soo wacay wiilkii aabbihii, isagoo u sheegayaa inuu si degdega guriga u yimaado, maxaa yeelay waxaa guriga yimaaday buu dhahay wiilkiina aad caawisay adeerkii iyo faamiligiisa oo dhan. wiilkii waa uu ka cudur daartay, waxa uuna u sheegay inuu hadda meel fog ku sugan yahay, laakiinse aabbihii waa uu ka yeeli waayey. waxa uuna ku dhahay, waad ku qasban tahay inaad timaado si aad u salaanto faamiligan ku soo booqday. asxaabtiisa oo markaa hadalka maqlayay ayaa waxay ku dhaheen, dib ayaan kuu celinaynaa si aad aabbaha waxa uu ku dirsanaya u soo qabatid. waa ay soo celiyeen. gurigii ayay keeneen. waxayna ku dhaheen, waan ku sugi doonaa saaxiib ilaa intaad hawsha ka soo dhammaynayso. wiilkii waxa uu yimid gurigii oo faamiligii iyo wiilkii yaraa ay joogaan. halkaana wakhti ayuu kula qaatay. hadda wakhtigu waxa uu ku dhow yahay maalinta gabagabadeeda. korsheegtun waxa ay sheegaysaa wakhtigii salaada casar. wiilkii waxa uu isku dayey in uu ka war helo asxaabtiisii halka ay ku dambeeyeen. waa uu wacay, laakiinse kama aysan qaban. marar badan ayuu ku celceliyey, laakiinse nasiib darro waa ay ka qaban waayeen. waxa uuna u maleeyey in ay ka xanaaqeen maadaama uu raaci waayey. waxa uu isdhahay, balantiinnu waxay ahayd inaad israacdaan, laakiinse adiga hawshan ayaa ku hakisay. ilaa hadda waxa uu aaminsan yahay inay asxaabtiisii ka xanaaqsan yihiin. waxa uuna isku dayayaa inuu dibadda u soo baxo si uu u raadiyo in ay meelun ku sugan yihiin. waxa uu soo qaatay gaadhigiisii, isagoo isla markaana ku wajahan goobtii ay ku ballansanaayeen. waxa uu socdaba waxa uu arkay waddada oo jaan badan ku jirta, buuq iyo ambalaasna ay yeedhayso. waa uu yaabay. gaadhigii ayuuna istaajiyey. waxa uu isku dayey in uu lugeeyo si uu uga soo war helo dhawaqa ambalaastu meesha ay ka yeedhayso.
goobtii ayuu soo gaadhay, waxauna indhihiisii qac ku siiyey labadiisii saaxiib oo islamarkaana sakaraadaya, gaadhigiina uu la rogmaday. wakhtigaa ma aysan dhimanin, nololna uma dambayso. waa uu soo dul istaagay, aad ayuuna u naxay. waxaa islamarkiiba maskaxiis ku soo dhacday haweenaydii cunug yara uu caawiyey. allah baan ku dhaartay, rasuulka ilaahay nabadgelyo naxariis dushiisa ha ahaatee run ayuu sheegay marka uu lahaa sadaqadu waxay damisaa balaayooyinka ku soo socda. waxa uu dhahay, rabbiyow, kuwani waxay ahaayeen asxaabtayda, islamarkaana waxaan isku raacnay inaannu macaasi waxaadan raalli ka hayn samayno. waxaan ka toobad keenayaa rabbiyow dariiqii aan ku socday. waxaan ku dadaali doonaa akhrinta qur'aanka iyo inaan salaadaha wakhtigooda ku ilaaliyo. haddii aad muuqaalka waxuun ka faa'iiday xaqiisa hala dhaafin. daawashada muuqaalka waad ku maasantahay saaxiib.